Gabadhan yar 4 maalmood ayay ku nooleed dhismo burburay hoostiisa. Markii laga soo saarana waxa ay ku hadashay eray la yaab leh, mucjisada nool ee reer Xalaab. Ka waran daawade haddii aad adoo si caafimaad qaba gurigaaga ugu soo hoyaaday, deetana cashayday, isku kala bixisay sariirta aad daaqadana furato si aad u eegato magaalada bilicda ay bahal diyaaradu intay dushaada timaado shaawar camal ku siisa rasaas, gurigii aad deganeedna kugu soo dumo, walaalkaana oo hortaada ku shiido sida cabitaankii, hooyada magaceediyo gaadiyana uu ku dhaafo, intaana ay kuu dheertahay in adigu aad tahay ruuxa kaliya oo nool, haddana uu gurigii ku dumay, markaana ku jirto dhismaha hoostiisa ama burburka hoostiisa. Gurmadka aad maqlayso codkooda, laakiinse adiga aadan awoodin inuu gaaro midkaaga. Halkaana ku xayrnaatid 4 maalmood. Xaalad noocee ah ayaa dareemi lahayd? Bal qiyaas oo nagu soo sheeg kommentiga. Qisadeena maanta waa mid noocaasa kuna tusinaysa qadarka Alle iyo haddii qaanda bariis adduunyada aad ku leedahay inaadan kaga tegin aad ka qaadanayso. Marka mar hadday xaalad ku qabsato albaabkii aakhira waad garaacdeeda walal waad soo noqon si aad u qaadato qaandadii bariiskaeed ee ku taalay adduunka. Ha ka walwalin inaad ka tagto. Marka kusoo dhawaada sheekadeena maanta halkaani waa baxarnaadhi aniga waskiye salaam waa asxaabay waahan janalkeena cilad baa naga haysata oo ah in muuqaalka uunan dadka gaarayn ama sida baraafada ku jiro kale yaa. Marka haddii sheekadeenu kusoo gaadho micnaheedu waa in janalkii noo fiicnaaday. Markaa noo soo hambaaliyay wixii ra'yigaagana nala wadaag, subscribe ku qabo muuqaalka, like-na iska reeb. Waa mahadsantihiin. Haddana aan guda galno qisadeena maanta. 2016 dalka Suuriya waxaa ka socday dagaalo ba'an, guryaha saa'id ayay u burbureen, sidoo kale waxaa ku naf waayay kumanaan qofood, kumanaan kalena way ku dhaawacmeen. Wadada ama magaalada Xalab xaafadeeda mid ka mid ah waxaa ku nooleed inan yar oo lagu magacaabo Maria waxay la nooleed walaalkeedii hooyadeed, da'deeduna waxay ahayd 7 sano jir. Guryaha ay ku noolaayeen waxay ahayn guryo dabaq ah, sidoo kale jaararkooduna waxay ahaayeen dabaq, guryo mataana ama seed ah oo dabaqyo ah. Xilli habeen ah iyadoo la hurdo ay bahal diyaaradu intay timaaday bay guryihii waxay u rusaysay si wacan. Markaa dagaalku waa u kululaa, dadka gobol waa qaxeen, dadna waa ii joogeen oo waa is adkeynayeen maadaama waddankaagii iyo gurigaagiiba meel loo dhaafa aysan jirin. Halkaana waxaa ku dhintay kumanaan ruux. 3 maalin ayaa laga soo saarayay dhismahaas hoostiisa, il, dheg iyo goon iyo meydadka kumanaan qofood oo u badanaa carruur, waayeel iyo haweenba cid kasta isugu jirta. 3 maalin kadib waa la daalay, bis baa la yidhi. Qolyihii gurmadku waxay dhaheen kolley qofkii noolaana hadda tag, midkii lasoo saarana lasoo saaray. Maalinkii 4aad inan lagu magacaabo Maxamed oo ka samri la ehelkiisii oo meesha uu ku waayay hooyadiisna ay uga dhawaaqayso burburka dhabarkiisa baa dul wareegaysanayay burburkii guryaha. Asuu wuxuu ka maqlay meesha shanqar, kadibna dhagaha ayuu la raacay. Ugu dambeyn wuxuu dareemay burburka hoostiisa inay ka soo baxayso shanqar, wuxuuna wacay qolyihii gurmad. Markii ay yimaadeenna waxay bilaabeen inay dhagadegeeyaan ama ay dhageyso shanqarta. Markay ogaadeen dhinaca ay ka soo baxaysana waxay bilaabeen inay qodaan. Muddo saacado ah ay kala qufayeen burburka, dhagaxda, jayga iyo biraha. Waxay meesha ka soo saareen inan yar. Banaankii markii ay keeneen waxa ay tiraahday, meeyay hooyaday, hooyo miyaad weli hurudaa? Isbitaal ayaa la geeyey, xibnaheediina qayb badan oo ka mid ah waa ay weysay, sida lugaha, afdhabarka dhaawac ka soo gaaray iyo gacmaheeda. Sidaasoo kale waxay arkaysa inantaasi yar